diyaarada ay ku faanto dowladda Faransiisku. Dadawga adduunku waxay u arkayeen dagaalkan inuu yahay mid u dhexeeya Bakistaan iyo Hindiya, balse sidoo kale waxa uu ahaa dagaal u dhexeeya bariga iyo galbeedka. Xilligan bariga waxaa hogaaminaysay dowladda Shiinaha oo iyadoo haytii hubeynaysay dalka Bakistaan. Dhanka reer galbeedkana waxaa hogaaminaysay dowladda Faransiiska oo iyadu Hindiya u gacan gelisay diyaaradii ay ku faani jirtay ee Rafale. dalka Bakistaan waxa uu ahaa mid weligiiba ku tiirsanaa markay noqoto qalabyada difaacyada dalka Shiinaha. Hunuuduse waxay xilliyadii hore hubabkooda ugu badan kala soo degi jireen dalka Ruushka, balse wixii ka dambeeyay dagaalkii dowladda Ruushku ay ku qaaday dalka Ukraine, reer galbeedku waxay ahaayeen kuwo hunuudda culays ku saarayay inay ka gataan hubabkooda dalalka reer galbeedka ah, waana taata keentay in dowladda Faransiisku ay ka iibiso diyaaradda Rafale oo iyadoo haatan fashilantay. dalalka reer galbeedka ayaa durbadiiba amray Bakistaaniyiintu inay dagaalka joojiyaan. reer galbeedku ma aha kuwo aynu ku baranay inay joojiyaan colaadaha adduunka, durbadiina u soo gurbadaan dalalka adduunku xilliyada ay dagaalamayaan, balse joojinta dagaalkan ayay waxay ka dhaxarkeen dantooda oo ahayd inaanay fashilmin hubabka kale ee reer galbeedka, gaar ahaan diyaaradda F-16 oo ay dowladda Bakistaan ku dagaalanto, maadaama gantaalkan ay isticmaalayeen diyaaradihii ay farsameeyeen Shiinaha iyo Bakistaan. haddaba daawadayaal, gantaalkan BL-15 ayaa waxa uu yahay gantaal markiisii ugu horreeyay dowladda Shiinuhu u soo bandhigtay dalalka adduunka sanadkii la soo dhaafay bishiisii 6. xilligaas ayay sheegtay inuu diyaar yahay gantaalkan qaybtiisa loogu talagalay in laga iibiyo dalalka dibadda, gaar ahaan kuwa saaxiibka la ah dowladda Shiinaha, waxaana u horreysay dalka Bakistaan. culayska gantaalkan ayaa waxa uu yahay 200 ilaa 240 kiilo, dhererkiisuna kama badna 399 sentimitir. waxa uu ka dagaalami karaa 200 ilaa 300 kilomitir, balse Bakistaaniyiintu gantaalkan ay ku dagaalamayeen waxa uu ahaa mid ka dagaalami karayay 145 kilomitir oo keliya. inkastoo Bakistaaniyiintu ay haysteen gantaal ka dagaalami karayay 300 kilomitir, haddana waxay door bideen inay ku dagaalamaan ka dagaalamaya 145 kilomitir, maadaama diyaaradahoodu ay ahaayeen kuwo ku dagaalamayay jawi hoose, taasuna ay ahayd tii u keentay guusha Bakistaaniyiinta ciidamadooda cirka. samaynta gantaalkan ayaa daawadayaal gebi ahaantiisuba waxay tahay mid aanu bini'aadan ka qayb qaadan, marka laga reebo warshadaha samaynaya inay soo gaarsiiyaan qalabyada laga samaynayo. waxaa gantaalkan gebi ahaantiisaba farsameeya robotis. durbadiina gantaalkan iyo qalabyada kale difaaca ay soo saaraan dowladda Shiinuhu waxay noqdeen kuwo dalabaad xoogan ka hela dalalka caalamka, halka hoosu dhac weyn ku yimi qalabyadii difaaca ee dalalka reer galbeedka ah. waa dowladaha reer bariga, gaar ahaan dalalka Shiinaha iyo Ruushka oo iyagu qiimo ahaan ka hooseeya qalabyada difaaca reer galbeedka. gantaalkan ayaa qiimihiisu oo dhammi yahay $1 milyan, halka kaakan u dhigma ee dalalka reer galbeedka aad ka heli karto lacag